waa mid ka mid ah barnaamijyadeennii aynu uga hadlaynay beelaha ku abtirsada Hawiye. Barnaamijkeena maantana waxa aynu uga hadli doonaa beesha la yiraahdo Baadacadde. Beesha Baadacadde waxay u abtirsataa sidan: Baadacadde Gugundhabe Hawiye, Hawiye Erer Samaale. Beesha waxa ay degaan gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo meelo kale oo ka tirsan dalka Soomaaliya. Sidoo kale beesha waxa ay aad u degtaa dowlad deegaanka Soomaali Galbeed ee dalka Itoobiya ee la yiraahdo Kililka Shanaad. Odaga Baadacadde ahaa waxa uu dhalay 5 carruur ah oo kala ah 4 wiil iyo sidoo kale gabar. Waxa ayna kala yihiin Warable Tigaale, Waadeero Tigaale, Beydisle Tigaale, Muumin Tigaale iyo sidoo kale Xabiibo Tigaale. Beydisle Tigaale waxa ay degaan dhulka la yiraahdo ismaamul goboleedka Soomaali Itoobiya. Waadeero Tigaalena waxa ay la degaan Gaaljecel. Muumin Tigaalena waxaa la sheegaa in uusan dhalin wax carruur ah oo wax ka farcamay aysan jirin. Xabiibo Tigaale iyadana waa hooyadii dhashay Gaaljecel, sidaasna Gaaljecel waxa ay beesha Baadacadde ugu tahay reer abti. Warable Tigaale oo ah kuwa Baadacaddaha ugu badan aalana dadka ay yiraahdaan waa Baadacadde, balse xaqiiqadu ay tahay in ay yihiin beel ka mid ah Baadacaddaha ayaa waxa ay u kala baxaan 10 jifood oo kala ah jifada la yiraahdo Maamiye, Subayr, Ilaabe, Xaamud, Ibraahim Baadacadde, Samaroob, Cadowyar, Carayahan, Quruweyle iyo sidoo kale Afgaab. Beesha waxa ay leedahay madax iyo sidoo kale ganacsato caan ah oo dalka Soomaaliya iyo dibaddiisaba laga yaqaano. Haddaynu qaar ka mid ah dadkii soo maray beeshaasi aynu ka hadalno, waxa ugu horeeya Duuliye Sare Cabdullaahi Weydow, Allah u naxariistee. Waxaa ku xiga Maxamed Xasan Aadan Ceel Qode oo isagana ahaa gudoomiyihii USC sanadii 1998. Maxamuud Cabdullaahi Barre oo loo yaqaan Faytaan waxa uu ka mid ahaa bayloodiyadii ugu horreeyay Soomaaliya ay yeelato. Dr. Muumin Cumar Axmed isaguna waxa uu ahaa siyaasi, sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa guddigii fulinta ee USC ee 90meeyadii. Cabdullaahi Axmed Shire oo loo yaqaan Shaxan waxa uu ahaa gudoomiyihii Somali Airlines 80meeyadii. Macalin Yuusuf Macalin Cabdi isna waxa uu ahaa gudoomiyihii maxkamadda Jalalaqsi. Cabdikariim Axmed Cali waxa uu ahaa gudoomiyihii hore ee USC, sidoo kalena waxa uu wasiir ka soo noqday dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee uu hogaaminayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed, Allah u naxariistee. Axmed Abrone Aamin waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee uu hogaaminayay Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Nuur Wabar Cabdi isaguna waxa uu xildhibaano ka soo noqday dowladihii isku xigxigay ee laga soo bilaabo dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee uu hogaaminayay Cabdullaahi Yuusuf. Axmed Cumar Gaagaale waxa uu soo noqday isagana xogayihii arrimaha dibadda ee USC, sidoo kalena waxa uu wasiir ka soo noqday dowladdii TFG-da. Dr. Maxamed Axmed Jaalle isaguna waxa uu ahaa xildhibaan ka mid ah xildhibaanadii dowladdii TNG-da. Maxamed Cusmaan Diini waxa uu ahaa xildhibaan intii u dhaxaysay 1956 ilaa 1964. Sheekh Maxamed Cadowyar waxa uu isagana ahaa xildhibaan ka mid ah dowladihii ka horreeyay kacaanka. Cumar Maxamuud oo loo yaqaan Cumar Laangare isagana waxa uu ka tirsanaa xildhibaanadii 1968. Xasan Maxamuud oo loo yaqaan Xasan Gedisley waxa uu ahaa isagana xildhibaan ka tirsan xildhibaanadii 1964. Cumar Xaaji oo loo yaqaan Cumar Dhaashane isna waxa uu ahaa dadka beesha dhexdeeda caanka ka ah, galaangal siyaasadeedna ku lahaa. Ugu dambeyn, Dr. Maxamed Cusmaan Tiifow oo isagana ah siyaasi ayaa ka dhashay beeshani. Daawadayaal, tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.